ما dadka Soomaali baad ugu qabataa mise qabiil baad ugu qabataa Soomaali wax ugu qabtaa Soomaalinimo igu qabada Xuseen baan aad la 100 daaroodan aad laha aniga in la falanqeeyo maraba sababtan dadkaas oo dhan kaaga soo doortay adiga nin daaroodana ma tiinin ogaadeen ma tiideen adiga i falanqeyn oo qabiilkayga falanqeyn oo yaa taaday diin oo yaad ka soo jeeday diin Soomaalinimada ha kugu filaataan ina Soomaaliyeed baan haddaad idaysid bartan Soomaali kama shaqaysan idaji waan degan waan ogolay wallaah Okay telefoon ma ku hadli karnaa marka telefoon ma ku hadli karnaa Firi aniga qabiil waxba iman taray Nairobi buuxaa social media buuxaan ayaga dad igu xiga shisheeyaha ii dhaama ma fahamta aniga ina Soomaaliyeed baan Soomaalinimo igu qiimaa haddaad daysid Soomaalinimo halkan kama soconayso oo qabiil baan qiimeeya igu daji qabiilka haddii qabiil dan kale laga leeyahay wuxuu si kale inuu dhiiqaystaan de markaan ka degto ku dhiiqaystaan qabiilkayga maya adeer aan wax yar kula hadlo halkan waa loogu qabtaa dadka wax maya aan wax yar hadlo halkan dadka waxa loogu qabtaa laakiin qof aan qabiilkiisa la garanaynin waxa ila soo xirtay long time hada in badan baan ku saxiriray way qabiilka daar ala soo ma maqashaaniga adeer waxaan gabadh ku raadinaysan markaas xiriireen waan waay laakiin ugu dambeyn ambarkaaga waan helay adeer waxaan u baahanahay in inta qolkaaga igelisid maxkamada inde ana la caawiyo way gabar Nairobi joogto ku dhibban baanaha dhalinyaro ah horana loo wareys okay ilaa mar ila soo haasho video isoo duubta ani Soomaalinimo igu qiimaa haddaad tidhaadid Soomaalinimo qofku ma qiimeeyay qabiil baan ku qiimeynaa idaji ogaadeen wuu joogaa daarood wuu joogaa adiga nin ogaadeena ma tidin daaroodana ma tid waxaan ku soo aaday oo kaliya Soomaalinimo haddaad idhaadid Soomaalinimo ma shaqaynayso waan ku salaamayaa waan deganayaa wallaah نعم Soomaali waan ku caawin daaro ma hadli karaano yo meeshaan dadka yimaada qof aan qabiilkiisa la garanaynin oo lagu caawiyo ma arag gabadhan reer bay sheegatay ninka ay haysatana reer bay ku sheegtay hadday Soomaalinimo rabto iyaduna ismay sheegteen wiilka kalena wiilka ay haysatana may sheegteen marka maadaama qabiilkii afkooda ka soo baxay wiilkii ayadaba waxaan u baahanahay annaga reer warfaa in ay runta sheegto aabaheeda aan garanno lacagteedii way helaysaa iikaad lacagteedii way helaysaa haddii ay macnaha is cadayso gabadhaas haddii aan is cadaynin de qof aan garanayna annaga magac annaga in lagu ceebeeyo diyaar uma nihin ma garantay sida runta okay hayo madaxweyne waa masaxay bas way wasmaa buusiin ma ku aan dijiray iska diga aniga ida wada dhamaysaneen daji adeer ay madaxweyne masaxay labaduba daji هذا كواس قرنيسا سان كفهم maaniga adeer anu ismaan qarinay qabiilna uma soo aadin aniga halkan qabiil uguma iman adiga daahir cala soo in adeerta mi laakiin gabar Soomaaliyeed oo kula dhalatay oo gabadhaado kala ah oo taad u dhaxdo oo kala ah oo kula dhalato kala ah oo taad dhasho kala ah aniga kuma soo aadin qabiil haddaan qabiil u baahanay daarood way buuxaan qolalka ogaadeen baan tagila laakiin waxaan ogaa inaanan wanaag kala kulmayn oo la falanqeynayo ani aabahay kulama hadlay adeerkii kulama hadlay qofka kula hadlay waa ani sababta aan u diidanahay mar horena waa lii ka diiday sababta ay u diideen ma caaw inaan daahir cali soo u imaado waa adoo ogaadeena way bad ugu imaata maxay ogaadeenimo igu qabanayaan waa waxba anu ogaadeenimo ma rabo hawiyanimo ma rabo isaaqnimo ma rabo waxaan doonayaa Soomaalinimo haddii aad dhahdo caaw Soomaalinimo ma shaqaynayso de waan iska deganayaa walaal okay way almar absoo iga qabo marka ogaado waxaan rabaa aabay adiga arintiin kadib waa ku caawina okay تلفونك يا غبها البرسوم ما كبح عليك ما يحكبح نص انا يا غبك انا مو قاعد نمو دير تعبسه مو تسوق لك هذا واك ساقش